درجة المقع وقوها الاستعادوا بيوم انت قد تكون ابدا هذا الخاين تو الشرف مركة خيق فورو مراي ما أرهدت الدنيا ده هش درجة المقع وقوها الاستعادوا بيوم انت قد تكون ابدا waxaan ku faraxsanahay maantay inaan soo dhaweynayno wiilkeena Asad Xaajiyo oo runtii ahaa wiil dhalinyaro Soomaaliyeed arxan lawayaasha qawaariirta ay dhibaato u geysteen haddana aan marnaba nolosha isku dhiibin inuu yahay qof naafa ama dhibaato gaartay Asad wuxuu wax badan ka bedelay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed waxa daawada dad badan wuxuu haystaa shacbiyadu leeyahay maanta waxa ka fahmi kartaa madaxdii dalka iyo shacabka magaalada Muqdisho ku dhaqnaa iyo dadkii dhalinyaradii baraha bulshada aaladaha kala duwan isticmaalay ayaa soo dhaweeyay waxay ila tahay marka fariinta maanta aan dirayno waxay tahay ummadda Soomaaliyeed isma dhiibi doonto mana laga yaabo inaan marnaba aan isdhiibno qawaariirta waxay ku tahay dhabarjab waxay ku tahay naxdin markay arkaan aqlabiyada iyo sida loo soo dhaweynayo marba meel la aadayay wal awoodi waayay inuu helo fursad حتى وبالشدة كلها هذلو أسد وحلاي إيد سودو ماما سودو هاي سودو وكجعلنا هاي وهذا كيسان موديري أيا جيس كي تاجن واحد تاجن قبلها يجي جيس والبابا مال ما أنت نادي من شعب كل قن عاصمة السقاسة أيا سودو وينا يعني وجددوا محيطي مركب شعب كل درايا فرين أسد وكدي جاي مانتي قف قلبي بالشدة كنا ولا جعل كان وقبنا مالمهن دن waxay socday qaban qaabada lama kala harin hooyo aabe wiil gabar waa dhamaanteen waxaan u soo baxnay maantay loo shaqo daayay ilaa xalay maanta oo diyaaradda cirka saasan wada fiirinayna ilaahay wuu noo nabad keenay waxaan leeyahay Asad soo dhawow ku soo dhawow wadankaaga hooyo wallaahi saaka uu maalina oo maxallahay oo farxadiisa la qaybsano ilaa haddana waa joognaa ugu dambeyn waa arkay alxamdulillah waxa ku leeyahay afka soo dhawow dalkaan hooyo ku soo dhawow dadku jecel joogan iyo dalku jecel soo dhawow markaa qalbiyada dadka Soomaaliyeed ee dhalinyarada Soomaaliyeed sida uu ku yahay waxaad ka garan kartaan soo dhaweyntiisa wuxuu maanta dalkiisa dib ugu soo laabtay kadib markii uu xaqiijiyay ama ogaaday in magaalada Muqdisho ay nabad tahay dalkiisa uu nabad yahay doorasho isu diyaarinayo dhalinyarada Soomaaliyeedna waa astaan u yahay waxaan rajaynaynaa in maxay ay maalmaha uu halkan joogo oo ka qayb qaadan doono nabadda iyo horumarka dalka ka jira waxaana leenahay Asad ku soo dhawow magaalada Muqdisho mar kale adigoo insha Allah dalkaagii yimid iyagoo horumar ballaaran oo ka jiro dalka Soomaaliyeed waana kugu soo dhaweynaynaa caasimadda ummadda Soomaaliyeed soo dhawow